hay-adda wadaniga ee Soydafo oo gacan ka helaysa midowga Yurub ayaa dhaqaale dhan 48,000 oo dollar guddoonsiisay 150 haween oo bartay xirfadaha kala duwan waxayna sidoo kale abaalmarina iyo sidoo kale lacag ka kooban 500 oo dollar guddoonsiiyeen 10 ka mid ah guuleystayaasha bandhigga hibe iyo hal abuur oo ka socday magaalada Burco. Munaasabaddan oo ka qabsoontay Hotel Cafe ee magaalada Burco ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco, mas'uuliyiinta hay-adda wadaniga ee Soydafo iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Ugu horeyntii waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha hay-adda wadaniga ee Soydafo Maxamed Cabdilaahi Guuleed waxaanu sharaxaad ka bixiyay faa'iidada mashruucani. Mashruuca waxa fulinaya hay-adda Soydafo iyo iyadoo kaashanaysa gacan ka helaysa midowga Yurub oo markii koobaad hay-adda wadaniga oo dalka Soomaaliland ka diiwaan gashan ay toos ula shaqeyso midowga Yurub. Wada shaqeynteedu waxay bilaabantay 2017 dhamaadkoodii bishii December. mashruucuna wuxuu bilaabmay 2018 bishii koobaad wuxuuna dhamaanayaa sanadkan soo socda hadii la ka dhigay 2020 bishii lixaad. dhankooda waxaa iyaguna uga mahad celiyay guddoomiyeyaasha xaafadaha kala duwan ee magaalada Burco isla markaana boogaadiyay garab istaagga ay samaysay hay-adda Soydafo. waxay u qaymisay horumar waana soo saartay waa hay-adda kaliya ee anagu haddaanu xaafadaha nahay ilaa imanka aanu ka hayno waxtar muuqda oo degmada anfaca. waxa weeye lacagtaasu amaah maaha, riba kuma jirto, waa lacag la siiyey, waa lacag lagu caawiyey, waa lacag lagu kaabiyo ganacsigoodii halabuurkooda aad iyo aad marcelinayna. waxaa jira hay-ado badan sidii hore loo sheegay oo gobolka jooga oo aan muuqanin oo aad iyo aad anagu aan loo jeedano dowladda xaafadaha. haddii ay sidaas oo kale injooyaan ama ururada ka shaqeynaya magaalada ay Soydafo kale ahaayeen Burco kaalinta ay kaga jirto Soomaaliland gobolka Togdheer muu hooseeyaan ismaana muu noqdeen. waxaa jira mashaariic badan iyo rag badan oo wasaaradaha kala noocan ee Soomaaliland ka soo qaata mashaariico iyagoo magacyada ku soo qaadanaya maxay haytay inay uga qabtaan bulshada laakiin ay noolan karno dawladdii isku soo dhiibtay hay'adaha u soo dhiibay waxa weeyaan cad iyagana ka yimi ninkii wuxuu waa cad kale ka yimi guriga annagana aan soo gaadhay. Soydafo waxaanu leenahay waa mahadsantiin gacanta ku dhigana waxay la qaadanaa harin waxaanu ka hadlaynaa anigu haweenka ayaan u hadlaya dhalinyarada oo dhalinyaradeedii waxa weeye waxaanu ka hadlaynaa dardaaranka leena faradnimo sida uu fulin. intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer, xogayaha dawladda hoose ee gobolka Togdheer, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco kuwaasoo dhammaantoodba boogaadiyay garab istaagga jiilasha soo koraya in kor loo qaado dhaqaalaha iyo xirfadda aqooneed ee uu ku ganacsanayo labadaba. waxaa loo baahan yahay markaa in arrintaasu laga midho dhaliyo si fiican oo qiimo leh looga midho dhaliyo. dhaqaalaha maanta la bixiyeyna uu noqdo dhaqaalo ka muuqda. waa dareensannahay qoysaska ay gacanta ku haysaan in lagu maalgeliyo ay ka muuqdaan haddii alla yidhaahdo. waxaanu leenahay waa muuqateene inta kalena waynu garab taaganahay idinkuna waxaa maanta laydii dhiibay ama laydigu maalgeliyey ilaahay idii barakeeyo. taa maanta dumarka gashay reer Burco ee dhalinyarta u badan waxaan ogahay in reero badan insha Allahu tacaala ku intifaacsan doonaan waxay soo kordhiyaan ay kor uga sii qaadaan mooyaane iyaga hoos waxna uga dhici maayaan waxna ka bixi maayaan. waa in lagaga daydaa Soydafo aad iyo aad baan Soydafo ugu hambalyeynaya waxtarka maanta ku soo kordhiyeen gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco. ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo xidhay xogayaha gobolka Togdheer Cabdiweli Maxamed Ciise iyadoo halkaasna abaalmarin lagu guddoonsiiyay 150 haween oo bartay xirfadaha kala duwan ee gacanta iyo sidoo kale 10 ka mid ah guuleystayaashii bandhigga hibe iyo hal abuur ee ka socday magaalada Burco. Soydafo in badan waxay noognayn dhalinyarada iyo haweenka magaalada la shaqeysto oo wax la qabato ay sidii ay u shaqeysan lahaayeen ama xirfado kale oo heli lahaayeen ay ku soo barto. waan u mahadnaqaynaa iyada dhammaan inta ka soo qayb gashiintiina guuleysatay ee ku guuleysatay inay jaayisada la guddoonsiiyo maanta idinkana waa idin mahadnaqaynaa. Maxamed Saciid Gaxnug, telefishinka caalamiga ee Badda Cas, Burco.